laakiin ciidanku laamaha booliiska iyo sirdoonku ay soo qabtaan ogow hadhow waa lay qalday iyo maana filayn. waxaan salaamayaa shacabweynaha ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer SSC. waxaan rabaa inaan ugu horeeyo arinta dadka wax duuba taariikhdu maanta ay tahay 26 bisha Afraad 2023 waxaan ka soo saarnay qoraalo aan baahin doono cid alla cidii lagu soo qabto ayagoo ka soo duubay sida goobaha ay ciidamadu degan yihiin jiidaha magaalada dhexdeeda. waxa qaban doona qodobo ay wax way ka mid tahay sida basaaska aanu naqaan. waan ognahay waxa jira dhalinyaro badan oo iska xasaasiyeysan oo xilliga goobta dagaalka lagu jiro kale fiidiyoo iska duuba magaalada fiidiyoo iska soo duuba way jiraan meel loogu talagalay fiidiyoo lagu galo magaalada barso sida shuhaadada oo kale in qofku yimaado soo ku golaan fiidiyoo ku duubo barimaska caadiya ee kimbaraha cadiiban aan loogu talagalin fiidiyooyada sida goobaha ciidanku degan yihiin goobaha ay degan yihiin ismada iyo dhaqanka goobaha xarumaha dawladda ee sidoo kale ay ku dhex yaala magaalada gudaheeda in aan laga soo duubi karin wax fiidiyoo ah iyo wax sawir aan laga soo qaadi karin. cid alla cidii lagu soo qabto arintaasna ay sharciga mutaysan doonto insha Allah taala. waxa xiga dhalinyarada ay badanaa xabaduhu magaalada ka dhacaan warunta waxayna u badan yihiin qoryo la soo qatay ama la tijaabsanayo ama dhalinyaro iska baridayaba iyo kuwa u shaqeynaya qolada nabadiidka aan ognahay in magaalada ku jiraan ay ku dhumaaleysanayaan. waxaan leenahay markii labaad aan digniin ka bixino cid alla cidii amniga khatar ku ah iyo waxyaalaha lidka ku ah ku hawlan isku soo dhiib sharciga una imo ciidanka booliiska. cidii laakiin ciidanku laamaha booliiska iyo sirdoonku ay soo qabtaan ogow hadhow waa lay qalday iyo maana filayn wax soconayso noqon mayso insha Allah taala. ciidankuna waxa weeye laamaha booliisku way shaqeeyaan laamaha sirdoonka sidoo kale nin walbo nin ilaali. reer Laascaanood waxaan leeyahay deegaanadan in badan ba waxay ka talinayeen nimanka nabadiidka ah SNM buurahaas kooxda ka shisheeye ku go'doonsan. waxaa jira dad weli u hanqartaagaya xogo badan aan hayn awood xawaadir inaan shaashaac marabno. waxaan leeyahay qof alla qofkii ku haminayay in waxa jiray muuqaal 24 sano ku soo noqoto SNM kamida lagu baahiyo ku soo noqon mayso dadkaaga la dareen noqo way oo ciidankaaga booliiska bartamaha magaalada Laascaanood guri ku yaala oo dabaqa xagiisa sare laguna qabtay qaybo kamid ah magaalada. muuqaalkaas oo lagu duubayay mobile qof shacab ah oo gabadhana ay duubtay isla markaana ay tilmaamtay in xaafadahaas dhanka koonfureed ku beegnaa oo ay kaamiradeedu haysay ay tilmaamtay in matacalka ku dhacay una ku yaalo meel aan ka fogeyn gurigii garaadada. dadku aad uga xaroodeen waxay codsadeen ciidanka booliiska Khaatumo in degdeg talaabo sharci uga qaadan la soo xiro qofka noocaas ah. maxaad talaabo aad ka qaadeen? waxaan ugu jawaabaynaa laamaha booliisku shaqooyinkooda aad bay ugu hoolan yihiin. fiidiyooga waxaan u maleynayaa xilligu soo shacbaxay waxay ahayd sida 12 duhurnimo ee shalay 9:40 goorteedna booliisku gacantii ku hayeen gabadhaas wayna xiran tahay. waxaan ku jirtaa qaybta baarista iyo kuwa badan oo kale oo badan oo xiran oo baaris ku socoto. cid alla cidii dambe ee baarista markay u soo dhamaato wax ku cadaadaan wax dambe la qarin maayo sida gacantaasi calaasha u cadaadaan hor keeni doona gabadha baarideeda iyo waxay ku soo dhamaatana saxaafadahan waa la kulmi doontaan insha Allah taala. ciidan waan soo bandhigeynaa gabadhaas waxay ku jirtaa laamaha booliiska gacantooda. waxaan ku sii darayaa aad waxaan ugu mahadcelinaynaa shacabweynaha reer Laascaanood ee reer SSC meel bay joogaan oo kala shaqeeya ciidamada booliiska waxyaalaha khatarka ku lidka iyo amniga sida daraagiska iyo kuwa basaasiinta. anigu waxba isma keenaa maadaama reer SSC qofka basaaska ah iyo kan qamriga ka ganacsanaya waa isku mid. qamriga SNM baa lacagta ku bixisa ugu badan sida Laascaanood rabshada ugu dhici lahaayeen qofkaan ogeynba ayaga lacagta ku bixiya
ayagaa fangaraya dalqiga ay ku bixiyaan ciidankooda jiidaha u jooga ay mataqaanaa dadka guryahooda ku haysta ay kusoo bixinayaan waxaa kaga qiimo badan qamriga laascaanood ay ku bixinayaan ay lacagta ku bixinayaan aan ogna howlo badan ay ku howlnaayeen burbuday mid ay hadda abaabuliyaan waxaan leenahay warniyow laba dowladood baanu nahay waxaad wadaan haddaad joojin weydaan faragelinta meel bay tegaysaa ilaa Hargeysa la sugu laadhacayaa qamriga aad usoo dhiibaysaan laascaanood Hargeysa looga baahan yahay adeero Hargeysa usii dhiiba taasaan iyagu leeyahay aad baan ugu mahadcelinayaa magaalada sheegay ka buuxaan idinkuna halkaas maxay ka qorshaa dadku nimankan 30 sano ay ka talinayeen deegaanadan way jiraan dad ay dhiigooda ku beerteen insha Allah taala kuwana gacanta ku hayno kuwana daba joognaa waxaan insha Allah taala balan qaadi doonaa danahay booliiska Misri ciidamada iyo laamiga booliiska inaan soo hortaagi doono shacab weynaha reer SSC iyo ummadda Soomaaliyeed iyo halganka